عليكم halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan halkan tacsiyo ugu dirayaa ummadda Soomaaliyeed ee lagu xasuuqay ee oramada suxun u xasuuqday ayaan inta halkan ugu tacsiyana waxaas aad ugu xumahay in dadkayga Soomaaliyeed aysan ka hadlin arinkan ama aysan ka nixin waxaan la yaabaa markasto oo qabiil ku duulo sida markaad furtid Facebook-yada markaad YouTube-yada furtid la isku caynayo la wax kasta la isdharayo laakiin markay timaado in dawlad kalena baabi'iso shib laga dhahayo waxaan la yaabaa balaayo baasta na soo agdhigtay ee oramada oo haddaad Muqdisho tagtina sidaas u buuxoon Puntland ka sii daran Soomaaliland warkeeda Jubbaland sidoo kale meel kasto waxaan la yaabanahay miis weydiiseen in ay kala jecel yihiin markii dib yimaado kan Djibouti ka yimid gabadha yareeday meesha mareysay Djiboutiyaanka ay haday qabteen xataa cawaanimadooda daris waaye xataa ma garanayaan qafkay arkaan oo magaca Soomaali wato halkaas ku tumayaan anagana dariskeena iyo kuwa meesha agteen wax ku gadaya wallahi aan la taaban hadal xun lama dhaho wajiga ummadda Muqdisho saas u dhooban yihiin hadda Puntland timaad saas u dhooban yihiin galmudug Texas u wada dhoob meel kasta balaayada baas u dhooban yihiin haddana halkeeni agtooda degnaa iyo wixii u dhawaawday u tagaan eber ka dhigayaan war balaayo baas yay idinkana waxaan weydiinay maxaa dhiig idinka qaaday markaad qabiil isku cunaysaan xoog wataad leedihiin markay dadkiina eber laga dhigayo ma u hiilisaanood kan jigjiga jooga iyo kan xamar jooga soo walaalo maaha war kan jooga Somaliland iyo ka Jubbaland jooga soo walaalo maaha war heeda miyay kala jecel yihiin Soomaali bay u tahay mad baastriinta agtiina joogta wada laydaan wallahi billaah dambi baa igu ahaatay laakiin waxay ay sameeyeen ba aad iga xanuunajinayso 200 bay dilayaan shibaka leedihiin oramadii baa xanaaqday kuwa agteena joogane saasay u baashaalayaan laakiin waxa isweydiisan kuwa la xasuuq walaaladeen maaha walaaladeen Djiboutiyaanka wala wiilal ilmihii dadkeedu dhan wala leynaya qafkii la arko Somaliland wala leynaya Puntland ma kala jeclo kalmadug sidoo kale kii xamarkiima sidoo kale warheeda maxaa dhiig idinka qaaday maxaa dhiig idinka qaaday waa laba isku cuntaan xoog isku leedihiin maxaa dhiig idinka qaaday ma qurankan iska qabataan ma ka hadashaan wada cabsanaysan Soomaaliland ka guriyihiina ku soo wada buuxisay dariskiina dhan waa wada orame saasa xataa qaarkood gabdhihiina u siiseen ee balaayo baas dhalayaan cadow la soo wada wallahi waxaan ku riyoodaa ma taqaana Muqdisho la wareego Somaliland la wareego Puntland la wareego hay dhigna qomay noqon doontaa iyo naagta maxay sida uga hadlaysaa laakiin waa sheeko soo socoto afkii bay barteen dhaqankii bay barteen waxaan arkay maalin hore gabar baa Somaliland ku soo qortay Soomaali aniga waan la caayay waan iscayna waa la isbaabiyay kadib gabadha waxaan isku aragnay qolay oramada leeyihiin hadda sida naagta oramada uga hadlayso waa oramada mid kale sidoo kale Ethiopian weeyaan waxaan idin weydiiyay balaayada isku keendiraysa dadka inay yihiin ma isgarat ma ogidin miya afkii inay barteen bay laba isku keendiraan haddii commentiga soo wada qoraan markaas adiga waxa uu malaysaa Somaliland ay tamayso tii Puntland joogo waxa malaysaa Puntland oo galmudug caynayso laba la isku caynaya bal qafka ina caynayo hadda aqal xisaabisan dib u sii raadsi qoladay garan arka eber baatihiin wax isku fala qabiil baa ibadin ka dhigay laba isku xoog isku heshiin laakiin dadka kale iska ma celisaan damiirkiin dhan wuxuu noqday qabiil oo idinka istumayo idinka isku mashquulin ummadda idinku mashquulshay iska qabto indhiha kala fura awaan